taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Generaal Zakiya Xuseen Axmed oo goor sii horeysay barteeda Twitterka ku shaacisay in uu xabsiga uu ku xirnaa ka baxsaday wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdirashiid Xasan Janan. taliyaha ayaa sheegtay inay ciidamada ammaanka ku raad joogaan Cabdirashiid Janan oo ka baxsaday halkii ay ku xirtay dowladda federaalka Soomaaliya inkastoo aysan faahfaahin ka bixin qaabka uu baxsaday wasiirka. wasiir Janan ayaa la rumaysan yahay inuu muddo toddobaadyo ah ku xirnaa xarunta dambi baarista CID-da iyo midda NISA inkastoo aan hadda si rasmi ah loo ogeyn halka uu ku xirnaa marka uu baxsanayay. Zakiya Xuseen Axmed taliye xigeenka booliska Soomaaliya ayaa dadka shacabka ka codsatay in laamaha amniga ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan wasiir Janan ama ay helaan xog ku saabsan wasiirka. bishii Agoosto sanadkii 2019 ayaa wasiir Janan laga qabtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde markaas uu taransad u ahaa dalka Itoobiya. dowladda ayaa kol hore ku soo oogtay wasiir Janan dambiyo badan markii uu dhawaan ka soo muuqday maxkamad inkastoo aan faahfaahin laga helin maxkamadeentiisa.